wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay munaasabad ka dhacday xeebta Liido oo la magac baxday nabad sheeg. Muqdisho waa caasimadda waddanka Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan kuwaas oo isku jira kuwa lahaa dhil colaadeed iyo dagaalo sokeeyay. Waxay soo martay xilli qofka Soomaaliga ah uu ka argagaxo xaaladda ay ku sugan tahay. maanta marxaladaasi way ka duwan tahay. muuqaaladii colaadeed waxaa bedelay ififeelo nabadeed. nabadaasi kuma imaanin mid xoog lagu dhaliyay ay ciidamada hubeysan ay qasab ku fulinayaan. waa dareenkii imaaday shacabka Soomaaliyeed oo goostay inay nabadda waarta sameystaan. inkastoo nabadda ay ka jirta Muqdisho aan la qabin magaalooyinka kale, laakiin dad badan ayaa aaminsan haddii ay Muqdisho nabad ka dhalatay in Soomaaliya ay nabad tahay, taas oo micnaheedu yahay qofkii maskax fiyow heli karo nabad iyo nolol. Muqdisho waa maskaxda Soomaaliya. halkan waa xeebta Liido, waa goob ay iskugu imaanayaan in ka badan 10,000 oo qof oo ku damaashaadayo xeebta bilicsan ee Liido. dadka qaar waa dabaalanayaan, qaarna neecawda ay ku noolaanayaan, qaar waa ay ku qaxweynayaan. dhammaantood waxay ka midaysan yihiin hirgelinta nabadda magaalada Muqdisho. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay dadweyne far badan oo ku nool magaalada Muqdisho. waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha karateega oo soo jiitay dhammaan dadkii ka soo qayb galay. dhalinyaradan waa dhalinyaro ku tababaratay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeebta Liido. waxaana sameeyaan muuqaalo filmeed oo ay aad u adag tahay qofka Soomaaliga inuu aamino in dadka Soomaaliyeed jilliinkan ay sameyn karaan. Ismaan Karate waa hogaamiyaha dhalinyarada. markii uu xeebta soo galo waxa uu leeyahay taageero badan oo dadka oo dhan way ku soo xoomaan. waxa uuna u muuqdaa nin aan ku ay sameynta muuqaalada filmada. أنا ولا أركي كعنكم مقالة. تاسو عاركة أنا إيجا بخدي. سام بلاد ولا سام بلاد نماهن. أنا ولا أركي الصومالي كعنكم مقالة ولا لسيته. والله أنا صومالي تاي. لكن أنت يكون البنت هذيك ما تودي مني ساني قايم في بلاد. waa 20 jir jecel mihnada film dhigida. wasiirkii hore ee warfaafinta oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay barnaamijka nabad sheeg ee munaasabadda maanta ayaa ka hadlay qiimaha uu leeyahay nabadda bulshada iyo kaalinta dhalinyarada ee ku leedahay hirgelinta nabadda. waa runtii dhalinyarada isxilqaantay inay shaqooyinka noocan ay qabtaan, dadkina entertain gareeyaan xaafadan ku sugan ee dhammaan magaalada Muqdisho. kadibna runtii waxay noqon doontaa qayb ka mid ah dib u soo celinta nabadda dalka. waxaan dhiirigelinaynaa dhalinyarada runtii barnaamijyada ay sameeyaan ay ku soo bandhigaan. waxaan diyaar u nahay wax walba oo la qaban karo in la qabto. sidoo kale xataa dhalinyarada kale inay tababarro kale siiyaan si hore ugu sii socoto nabaddu. waxay xataa mustaqbal laga sameyn karaa shaqo abuuris oo taasoo keeni kara runtii in xataa local films ay sameeyaan dhalinyaradan. Zakariya Maxamuud, Universal TV, Muqdisho.